dunidan aynu ku noolnahay haddii aad fiirso waxaad ku arkaysaa waxyaabo aad u layaab badan yacni si gaar ah haddii aad u fiirso qariirada dunida iyo weliba xuduudaha dalalka dunida waxaad arkaysaa waxyaabo cajiib ah ka waran haddii aan ku dhaho dunidan waxaa ku yaala dalal si buuxda loo aqoonsan yahay kuwaasoo ku dhex yaalaan isla dalal kale yacni dal si buuxda loo aqoonsan yahay kaasoo gebi ahaantiisaba ku dhex yaalo isla dal kale gudihiisa dalalka tiradooda waxay gaarayaan ilaa iyo 3 dal yacni 3 dal oo noocaas ayaa dunida laga helaya mid wuxuu ku yaalaa qaaradda Afrika laba dalna waxay ku yaalaan qaaradda Yurub haddii aan ku bilowno midka ku yaala qaaradda Afrika waa dal loo yaqaan Lesotho oo ka mid ah dalalka ugu yar qaaradda Afrika dalkaas wuxuu gebi ahaantiisaba ku dhex yaalaa isla gudaha dalka loo yaqaan South Africa ama Koonfur Afrika yacni dalkan gebi ahaantiisaba wuxuu ku dhex yaalaa Koonfur Afrika ama South Africa ayuu gebi ahaantiisa ku dhex yaalaa mana jiro dal kale oo xuduud dhuleed la wadaago labada dal ee soo hartan waxay ku yaalaan isla qaaradda Yurub si gaar ahna waxay ugu dhex yaalaan dalka Talyaaniga yacni Talyaaniga oo ah dal si buuxda loo aqoonsan yahay ayaa gudihiisa waxaa laga helayaa laba dal oo ayagana si buuxda loo aqoonsan yahay mid ka mid ah dalalkaas waxaa loo yaqaan Vatican City oo ah dalka ugu yar dunida yacni dalkan loo yaqaan Vatican City arinta cajiibka ah waxay tahay asagoo ku dhex yaala gudaha Talyaaniga ayuu haddana si gaar ah wuxuu ugu dhex yaalaa isla gudaha magaalada Roma oo ah caasimadda Talyaaniga ka waran haddii lagu dhahaba dal ku dhex yaala caasimad dhan oo uu dalka la leeyahay waad arkaysaa ma waad dareemi kartaa baaxad yarida ka jirtaba dalkaas yacni marar qaar waxaa la sheegaa in dalkan loo yaqaan Vatican City ay bakawan yihiin moolal qaar oo dunida ku yaal yacni mool oo ah xarun ganacsi ayaa bakawan dal dhan oo si buuxda dunida loo aqoonsan yahay dalka saddexaad ee soo haray waxaa loo yaqaan San Marino asagana wuxuu ku yaalaa isla gudaha Talyaaniga yacni waa dal aan airport lahayn wax degada ah lahayn si buuxdana ugu tirsan Talyaaniga haddii ay noqoto in uu ka dhoofo in ay adeegsadaan ama uu dunida inteeda kale u kala goosho si buuxda wuxuu ugu tiirsan yahay dalka Talyaaniga aragtida ku aadan dalalka nada wadaag muuqaalkan la garay beedka la soo follow garay si aad u heshaan xog xiiso badan oo dunida ku saabsan aad iyo aad u mahadsantahay